kala gudoomiye halkan hawshan halkan ka socota waxa lagu maamulay dadka jeebkooda waxaan macquul ahayn bay dadka laahayd in 260 kilomitir ay dad jeebkood ka dhisaan laba ujeedo ilahay in waxa la qabto ujeedada koowaad baa ahayd meesha wax laga qabanayaana in lagu baraajiyo oo ahayd dadka jeebkooda dadka in la baro inay waxooda wax ku dhisan karayaan yani kama dhacsanayn wada 260 kilomitir baa dad caadi ah oo aan dawlad iyo hay'ad caawinta aysan jirin baa jeebkooda ka dhisay boqolkiiba 20 ma dhama inta wax ku darata waxaan aad iyo aad ku bogaadinayaa Professor Shirwac iyo tiimka gob isku xilqaamay mas'uuliyaddan aadka u mug weyn runtii oo ah macnihii arrin taariikhda iyo dadnimada guddiga isku xilqaama arrintan muujinaysa wado 260 nafteeda ma aaminsanayn in la dhisi karo waxay ila ahayd xoogaa adeeg ayay ila ahayd iyo inay challenge-geeda ama caqabadeeda weyn tahay laakiin haddaan 150 marayno oo mis ka badan aan dhaafnay runtii waa guul weyn aad iyo aad aan u bogaadinaynaa saakiin markaan isku aragnay shirka ka socda Hobyo inaan halkan soo aadno runtii aad iyo aadan waxaan uga helayaa relief iyo dareen aad u sareeya waxaan ku boorinayaa jaaliyada dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan jaaliyada ka soo jeeda deegaanka Galmudug inay wadadan la gacan qabtaan guddigan la dhameystiraan waxay leeyihiin khibrad ay heleen hadda qalabka aragteen ay haystaan oo u dhawr adeegeen waxay noqon karaan hay'adda dhismaha wadooyinka Galmudug ay noqon karaan hadda taa runtii bilad iyo sharaf ay mudan yihiin annaga tabarteena ma badna laakiin runtii waxaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan aniga ku hadlayo magacayga iyo magaca xisbiga Wadajirba intii tabarteena ilaa lacag $5,000 inaan ku tabarucno oo ku darno wadadan iyo jidkan haddii Ilaahay yiraahdo waana mahadsantiin aadan idin rajaynaa